رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات وموضوعني أن أقول لنا يوانوينك بشهر رمضان إن أنا نفسدي نكواننا شؤونتي أنا نرش أننا ندب غفيرنا وحلقة اللحاد وحنقول لنا حلقة إن أنا بالكفير إنه كتابك القرآن كأه يا رب سبحانه وتعالى وسود الجي نرش أن ماشى كلام مريان أحبابي في الله سبحانه وتعالى مركي هو أبو ري نرشان يكون كان بحد وين أن كل إحنا والنهي رب سبحانه وتعالى وحصور راعي بوجي أما مانيوال ليفلتكي لغفيرين لها نرشا سمانتي ده iyo qalooceeda ee nolosha lagu hagi lahaa waxa wanaagsanna laga fiirsan lahaa wadooyinka xun ama qaloocanna looga leexan lahaa buugaasi waa kitaabka quraanka ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu noo soo dejiyay nabi ilaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallamna oo Rabbi subhanahu wa ta'ala inoogu soo dhiibay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo nabiga la hadlaya oo u tilmaamaya kitaabkan lagu soo dejiyay iyo bal waxa uu yahay ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku lahaa nabiga wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay waxaanu kugu soo dejinay kitaabka quraanka si wax walba uu cadeeyo oo nolosha wax walba looga baahan yahay isagu manhajkii hagi lahaa uu noqdo marka nolosha Rabbi subhanahu wa ta'ala kama uusan tagin wax illa kitaabka quraanka buu ku cadeeyay الله سبحانه وتعالى جانب والبا وجوانبته نرشه كميدنا قرآنك wuxuu ka dhigay mid cadeynaya oo ku filan nolosha inuu hago jawaanibteeda kala duwan oo dhan maanta waxa laga yaabaa kitaabka quraanka ah nolosheena meelaha uu ka saameeyaba inay tahay meel aad u kooban lidalika abu al-imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti alayhi rahmatullah waxa laga wariyaa inuu oran jiray hadaanu dib u fiirino fahamkii saxaabadu sidii ay quraanka u fahamsanayeen oo aanu barbar dhigno bal inagu maanta fahamka aanu kitaabka quraanka ka haysano ayuu wuxuu lahaa waxay noo soo baxaysaa inay jiraan aayado badan oo quraanka kamid ah oo aanu si khaldan u fahamnay inay sidoo kale jiraan aayado fara badan oo quraanka kamid ah oo aanu si khaldan u daliishano inay jiraan aayado fara badan oo quraanka kariimka kamid ah oo aanu si khaldan ugu cibaadaysano bal mararka qaar buu wuxuu lahaa waxa ay noo soo bixi kartaa kitaabka quraanka inuu yahay manhaj nololeed oo sidaan la fangalnay sidii saxda ahayd aanay ahayn يعني الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أيها إسنا وحا laga wariyaa inuu oran jiray ummadda muslimiinta Anas ibn Malik wuxuu kamid ahaa saxaabada nabiga radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum jami'an dadkii ugu cimriga dheeraa oo waxa weeye runtii saxaabada dadkii ugu dambeeyay xagga nolosha ayuu kamid ahaa baa la yiraahdaa wana khadim rasuul sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo dadkii wuxuu kamid ahaa iyagoo dhalinyaro ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti fiican la soo qaatay sirta iyo nuxurka quraankana waxa weeye fahmayay ayuu kamid ahaa marka wuxuu oran jiray baa la yiraahdaa hada saxaabi jaliil radiyallahu ta'ala anhu wardahu ummadda muslimiinta ahi intay quraankooda iyo sunnada nabigooda faham sax ah ay ka haystaan khayr ka zuulimayaan intaba ay fahamsan yihiin quraankoodu waxa uu yahay iyo ujeedada loo keenay iyo maqaasidiisa iyo ujeedooyinkiisa oo ay sirta quraanka fahamsan yihiin sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ay aragti sax ka haystaan wuxuu oran jiray ummadda muslimiinta ay khayr ka zuulimayso الصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه سنه وحا laga wariyaa يعني inuu yiri wallahi
ليس تدبره بحفظ حروفه مع إضاعة حدوده وحوران جري واتنا لفري قرآن كينا كتدبرنا وقرآن كمعاني دي سأنو محوي مسكح ذا أنو كعلنا وقرآن كبلي هذا وجدوين كلوسو دجي وحكم ذا أن يتدبر بها الإنسان يعني إنه قرآنكو يعني قرآنك إنه ضدكو كتدبره بني آدم كوي كفكران أيوم بقرآن كلوسو دجي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه مركب وحوران جري والله قرآن كإن لو تدبره معها إن حروف تيسا أو كلية الله حفظيه حدود ديسا الله ضيعه كومدنا مسلمين تاهي قرآن كوحوي أنت حدود ديسا ضيعيان أو قرآن كوحوي كلقن كيسا لقى فوقيه إن قرآن كلا آخريه أو الله حفظيه عرورت الله براه لقوت كذاهي وحوي تدبر كي قرآن كماها هذا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه معنيه سداوه قاعدته مركب وحوي أحبابي في الله قرآن كان سي ونوغو نقضه منهج كي ربي سبحانه وتعالى نوسو دجيي إنغونا نقضو ضد مقاصد القرآن كي يوجد القرآن كالوسو دجيي فهمسن وحا نقو واجب أفر الرموت أرينتا كواد وحاوي إنا القرآن كد ذالنو أخرينتيسا أنو حق عربك كأخرينو إسلام كان أنو كتدبرنو معاني ديسا علما وفقها إننا وحوي علمي يقون يلنا معاني دي قرآنك وأنو فقه ويلنا وأنو فهم سنانو إننا آخرنا إنه هدنا عرفك كوينا أرنت كوادي القرآن كواجب كنجسارني تاوي واجب كلباد القرآن كنجسارني وحوي إننا أحكام القرآن ككترتا أنو كل قنو تاو معناه يهي قرآن وحبون نفريا يوحي ونفريا إننا نفولنون قبلنا waxna wuu naga reebayay wixii uu naga reebayay oo quraanku naga xaraanimeynay nolosheena inaanu ka fogeyno arinta saddexaad ee waajibka ee quraanka naga saaranay waxa weeye in keeni xil qabta ee muslimiinta waxa weeye madax u noqda oo kursi iyo jago iyo talo caam ah umada muslimiinta u qabtaahi inuu kitaabka quraanka umada ku kala xukumo inta kalena labadii isqabsataahi inay waxa weeye meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wax looga xukumayo inay xukum tagaan oo Rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay xukumka u raadsadaan marka waxa weeye waa waajib saddexaad oo waajibaadka quraanka inaga saaran kamida waajibka afaraadna waxa weeye inaanu waxa weeye cudurrada ku dhacaya jirkeena ama cudurrada ku dhacaya aqligeena iyo maskaxdeena iyo nafsadeena labadaba waxa weeye dawadooda inaanu ka raadino Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa oo quraanka waxa loo soo dajiyay in la isku daweeyay inaanu waxa weeye isku daweyno marka waxa weeye waxay u muuqataa waajibaadkii quraanka naga saarnaa inaanu ku koobnay afarta midka ugu horeeya iyo midka ugu dambeeya labada dhaxan in laga tagay waxay u meera muuqataa quraanka in la akhriyo oo de masaaxiftu guryaha yaalaan oo waxa weeye habays ka yaraatay in badan oo dadka kamid ah waxa weeye quraanka ay carabka ku hayaan maanta nolosha muslimiinta waa laga dhaxeeyaa qof xanuunsan in quraanka lagu daweeyo oo dawo laga raadiyana nolosha muslimiinta waa laga dhaxeeyaa laakiin waxa meesha ka baxay waxa weeye ku dhaqankii iyo fulintii quraanka ahkaamtiisii awaamirtiisana in la fuliyo nawaahidiisana laga dheeraado iyo waxa weeye qofkii madax noqdahay inuu Ilaahay kitaabkiisa dadka ku xukumo kuwaan madaxda ahaynina markii waxa weeye arrimaha noloshooda wuxuu kamid ah in loo kala xukumay u baahdaan xukumkooda inay waxa weeye quraan kariimka ay ka raadiyaan إخواني مركب حوي نولش المسلمين النبي محمد النول أيو النبي صلى الله عليه وسلم وكعبتي ومديسو إن القرآن كي كهجرودين وأي القرآن كي كعرين وكرب سبحانه وتعالى القرآن كان يقول شيء وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني وحول النبي صلى الله عليه وسلم الله وحوليه رسولك وحولي ربي جاي ومدي ذي قرآن كان وحوي مهجور بيكرجان أو وح لجتجي أو نرشك لجسكي أو كعمل فلكيس لجتجي أيو الرسول صلى الله عليه وسلم كعبنا يا مركب مصيبة أمدا مسلمين تهايستا أو نلشوا ذا وحوي عكرتي وعز جودي كرامة ذا وحوي باب إسي وحكم ذا إنه كهجرودين كتاب كلا ربي نلشوا ذا إنه هجو أو قرآن كريم كأنه ولجدنه يعني meelaha ugu khatarta badan ee marka waxa weeye ku dhaqa yani quraanka kariimka looga hijrooday waxa kamid ah xagga yani ku dhaqankii quraanka kariimka in laga tagay inaanay waxa weeye maanta ba yar tahay noloshiisa qof u fiirinaya talaabadan ma xalaal ba ma xaraam ba qof kitaabka quraanka u celinaya waxaanay ma amar ba ma nahyi ba cid kitaabka quraanka u celinaysa oo waxa weeye nolosheedaba waxa hagaya kitaabka quraanka ka dhigtayba inay iska yaraatay
أنس بن مالك صحابي هدايا وكهذا لنا مر بعد وحال جوري إنه ورنجري رب تال للقرآن والقرآن يلعنه ألا بدنا قف قرآن كآخرنا يا هذانا قرآن كويسجل لعنة ذيو إمام الغزالي بقى وحاله مقولة ذا صحابي أنس بن مالك بدنا قف قرآن آخرنا يا هذانا قرآن كل لعنة ذيو محاولة كذا صحابي محا وركا معناها لقى فهم يا وامحي بركاس وحكوفة سر إمام الغزالي رحمه الله تعالى وحكوفة سر قف بقى قرآن كآخرنا يا آيات قرآن كه آخرنا يا وحي فريس فلين مايو waxay ka reebayso xumaanana ka fogaan mayo marka aayada uu akhrinayo aysan ku amal falaynin ayaa lacnadaysa oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naxariistiisa ka fogeeyo faraysa yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka codsanaysa waayo waa aayad quraan ah yani amar sidah amarkeedina uusan fulinaynin ama nahyi sidah nahyigi iyo wixii ay ka reebaysana yani uusan ka fogaanaynin meesha labaad ee ugu khatarta badan ee quraanka laga hijroodana waxa weeye quraanka in nolosha lagu xukumi kari waayay manahij kale oo siyaasadeed ama manahij kale oo waxa weeye yani ummaduhu ay isku xukumaan oo bedelo bini aadamku ay dajiyeen ama waxa weeye yani adiyaan kale iyo diiman kale usuushoodu ay ka soo jeedaan waxa weeye in laga qaatay marka quraankiina waxa weeye nolosha in la isku xukumo oo la isku maamulo oo nolosha waxa lagu kala hagaya inay quraanka noqdaan waxa weeye in laga dheeraaday taana waxa weeye ayadana khatar labaad marka labada meelood aan rabaa aad ku mulaaxaday waxa weeye quraankan waxaan la ka rabaa ummad iyo kali iyo koox inaan ugu dhaqano awaamirtiisa inaan fulino waahidiisana inaan ka dheeraano intii madaxana waxa weeye waajibkoodu uu yahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay wax ku xukumaan oo Rabbi subhanahu wa ta'ala manhajkiisa dadka ay ugu taliyaan oo nolosha waxay ummadda farayaan iyo waxay ummadda ka reebayaanba inay kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weeye ay ku saleeyaan dhanka saddexaad ee quraanka in laga hijrooday iyada qudheedu khatartu ka jirtaa waxa weeye waa quraanka xifdiskiisii iyo akhrintiisii qudhiisii in laga hijrooday caruurta yaryar baan maanta dugsiyada geynaa waxa weeye si galab oo bay dugsiyada u joogan markii waxa weeye muddo ay joogan ay umriga muraahaqada soo gaarana dugsiga inay sii joogan iyagoon baaba naga diida waxa weeye dadkii waaweynaana intoodii badneed quraanka way ka hijroodeen in quraanka xifdisan iyo in quraanka akhrinaysa in quraanka carabka ku haysaba waxa weeye aad bay u yaraadeen aad baa waxa weeye looga laayahay xifdiga quraanka wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam ka dardaarmay in la joogteeyo oo waxa weeye nolosha iyo nafsadaba waxa weeye arrimaha joogtada in lagu daro xifdinta iyo akhrinta quraanka waayo quraanka bulay nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu fakanaya oo waxa weeye yani maskaxda iyo aqliga waxa weeye quraanku in badan kuma sii jirayo haddaan quraanka la joogtaynin oo akhrintiisa iyo xifdiskiisa iyo ku cibaadaysigiisa iyo ku tadabburkiisa haddii aan la joogtaynin wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam ta'ahadu hada alquran fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi lahu ashad tafallutan min al-ibli fi uqliha wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam quraanka akhriskiisa iyo xifdiskiisa joogteeya waayo wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay allahi nabi muhammad nafsadiisu ay gacantiisa ku jirta waxa quraanku waa ka baxsasho badan yahay yani neef geela oo idinka waxa weeye yani xaraydin kugu jira ama idinka idin dabran waxa weeye quraanku waa ka fakasho badan yahay oo uu ka baxsi badan yahay culimadana waxay yiraahdaan quraanka xifdiskiisa waxa hayn kara laba qofood mid waxa weeye midka maalintii waxa weeye dadka quraanka bara midna waxa weeye midka habeenkii quraanka ku cibaadeysta oo quraanka ku tukada marka culimadu waxay yiraahdaan قرآن قف كلا ما حفظ سنان كرا وح حفظ سنان كرا إما مدرس له في النهار مدمان انت دت كبارة وإما متهجد به في الليل أما قف هبينك كنت هجده هبينك قرآن كعبادة يست أحبابي في الله دت باجرة والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قتل ما يهين دتك إلهي سبحانه وتعالى لا أهل كأ وإلهي سبحانه وتعالى دتك وجارك إلهي سبحانه وتعالى ياتك يسجدوا ويهينا دتك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وحكوش شيء أهل القرآن إن يهين دتك القرآن كأهل كوا إن يهين والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قتل مامي الإمام الشافعي عليه رحمة الله بوحلا ويدي واحد نوفسرتا وأيو دتك والنبي كوش شيء إن يهين أهل القرآن
kadibna ay yihiin ahlullahi wa khaasatu dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay sida gaarka ay isugu dhow yihiin markaas buu wuxuu yidhi ahlul qur'aani humul caalimuuna bih waalcaamiluuna bima fiih wuxuu leeyahay ahlul qur'aanka dadka nebigu ula jeeda waxa weeye dadka qur'aanka garanaya oo qur'aanka macaanidiisa iyo cilmiga ku jira fahamsan haddana ku camal falo oo ku dhaqma marka labada tilmaamood qofkii laga helo ayuunbaa ahlul qur'aanka ka mid noqonaya waxaana la yidhaahdaa culimmadu ay yidhaahdaan qof walbaahiba intuu fahamka qur'aanka u jiro waxa weeye ayuu ilaahay u jiraa qof walbaahiba intuu qur'aanka ku dhaqankiisa u jiro ayuu ilaahay u jiraa marka qof walba ku dhaqanka qur'aanka iyo fahamka qur'aanka ka fogaadahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka fogaanayaa qof waliba oo fahamka qur'aanka iyo ku dhaqanka qur'aanka u dhowina waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u dhow yahay أحبابي في الله وحن كختم يا مسألة وحوي قرآن كإن لا برتو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا برتو أي كإيمان كرتا إن لو عمل فلو أو قفك مسلم كهيون نقض قف لنول منهج كي رب سبحانه وتعالى أسود دجيي كأمر قات قرآن كي كريم كي رب سبحانه وتعالى كعمل فالكيسة وحوي واجبي مركب مسألة وحن كختم يا وحوي وحا أمضي لا نحدقي شبهة هاي صدتك عامة علماء يكر السعين هنا أنت عامة أيه وحوي diinta in la bartay quraanka in la fahmayo in lagu amal falayo ayaga waxa waajib weyn kama saarna iyagu caamo weeye marka waxaan mulaaxadaynayaa dadka rabbi subhanahu wa ta'ala uu dunidan keenay ee aqliga uu siiyay ee rabbi subhanahu wa ta'ala waxa way diintan inay soo gaarto rabbi subhanahu wa ta'ala u kal yani u qadaray oo rabbi subhanahu wa ta'ala umri iyo buluug iyo daaqan gaarnimo rabbi subhanahu wa ta'ala u gaarsiiyay si islamida ayay waxa way mukallafiin ugu yihiin diinta rabbi subhanahu wa ta'ala inay bartaan oo ay fahmaan si islamida bayna mukallafiin ugu yihiin inay ku amal falaan ay ku dhaqmaan oo ay noloshooda waxa xalaalaya waxa xaraamaya waxa weeye ay banaysanayaan iyo waxay iska mamnuucayaan noloshoodaba inay kitaabka quraanka ka fiiriyaan si islamida baan aakhira loo xisaabin doonaa oo su'aal loo weydiin doonaa oo manhajka rabbi subhanahu wa ta'ala waxay uga amal falaan iyo waxay dayaceen ba yani loogu xisaabin doonaa marka dardaarankaygu waxa weeye ku dhaqanka quraanka kariimka inaanu badino fahamkiisa inaanu badino akhriskiisa iyo carab koyntiisa inaanu badino inaanu noqono dad muslimiina oo kitaabkooda iyo manhajkooda la nool inaanu quraanka u fahamno noloshan markii la abuuray cirkan iyo dhulkan la taagay buugii lagu soo daray ee laga fiirinayay nolosha iyo manhajka hagaayay sida maanta adduunyada aanu u naqaano aalad walba iyo qalab walba la soo saaro shirkadda soo saartay warshada soo saartay ay ugu soo darto manual book yar ee sida loo isticmaalay aaladda iyo sida waxa weeye loola dhaqmayo laga fiiriyo marka adduunyadan aanu ku noolnahay buugga laga fiirinayo nolosheeda waa kitaabka quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala uu noo soo dajiyay wafaqani allah wa iyaakum lima fihi alkhayr wassalah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh رمضان